waxa jirta erey dadka oo dhan ay ka sameeyeen ilmo nabi aadan oo dhani waqtigii hore iyo waqtiga dambe iyo boqolaalka waqtiga soo socday intaba hadalka ay ereygaas oo ereyga ah maalin uun warjada qofku ka qabo inuu maalin maalmaha kamid ah uu hagaagi doono sida ugeed baa kii salaada aan tukan jirin oran doona maalin uun baan tukan doona insha Allah maalin uun markaas gabadhii waxa asturnaanteedu aad iyo aad u liidatay ee jirkeeda asturi jirin ay oran doonta maalin uun baan xijaaban doona markaas kii aan weligii sadaqa bixin dhabcaalka oran doono maalin uun baan noqon doona qofka can furan markaas ardaygii saaqidka ee aan weligii dadaal bixin oran doono maalin uun baan waxa way guuleysan doona dadaali doona ereyga maalin uun waa erey cid waliba ay ku hadasho ka weyn baa ku hadlo ka yar baa ku hadlo odayg baa ku hadlay islaanta baa ku hadlayso maalin uun inuu qofkani uu hagaagi doono cilada yar haysata wax yar ka khariban marun bay iska hagaagi doontaa iska hagaagi doontaa wuxuu sugay qofka noocaasi in samada ay mucjiso ka soo degto dabeedna qofka si gaar ah mucjisadaasi ugu soo degto dadka kale ku soo degaymayso dabeedna wixii ka qaldana oo dhan ay hagaajinaysa isagoo haba yaraatee farna aan dhaqaatin taas waxa loo yaqaan maalin uun caalamkan markuu qofku ku jiro markuu qofku degan yahay dalkan loo yaqaan maalin uun waxa ereyada mar walba joogtada ah hadallada inta badan lagu celceliya ay tahay waxa ereyada mar walba lagu celceliya ay tahay marka la joogo caalamkan iyo dalkan maalin uun inuu qofku mar walba cudurdaar naftiisa u raadiyo markaas kii salaada tukanay oranaya wallahi salaada waan tukan lahay laakiin warniyahaw waxa weeye amalka iyo shaqada ayaa igu badan markaas gabadhii xijaabka waxa weeye xijaab la'aanta iyo asturnaan la'aanta inta badan aan ku sifaysnayd ay oranaysaa wallahi niyahaw waan xijaaban lahay laakiin niyahaw shaqa ahaan markan shaqada joogo waa la yaabaya wax badan ku heli maayo يعني adduunyada qiimeyn qadarin ku heli maayo kii saaqidka ah wuxuu oranayay aan weligii wax barashadiisa aan ku fiicnayn ee aan dadaal jirin wallahi niyo waan dadaal lahaay wadniyaha macallimiinta si fiican wax noogu dhigmo marka caalamka joogto maalin uun ereyada iyo hadalka iyo luqadda rasmiga dalka laga hadla waa cudurdaarka qofku ku celcelinayo catawga iyo niicida aan waxa weey joogtada lahayn ee qofku mar walba uu ku celcelinayo heer marka dambe isagiis ogaa inuu been sheegayo uu ku qancayo in badan oo dadkan kamid yihiin waxay aaminsan yihiin si isbedel fiican ay u gaaraan isbedel cibaadada ah isbedel dad la dhaqanka ah isbedel xagga aqoonta ah isbedel waxa weey shaqada aday tahay ah dadkan waxay rajaynayaan inuu ay doonayaan waxa weeye in ay mucjiso ay samada kaga soo degto dadka guuleystay waxay aaminsan yihiin in sidaas la mid ah ama ilaahay hiba gaar ah uu siiyay ama si gaar ah dadka ay ugu duwan yihiin ismala marnaba khadka waxay ka saarayaan inay dadkan dadaalkoodii iyo tala saaradkii ay ilaahay tala saarteen ay halkan ay ku gaadheen am bishaara fiican ku siiyo bishaara fiican ma aha aan ku siiyo bishaara kaan xisa ogow saaxiibkayo ereygaad maalin walba ku celinaysa mustaqbalka quruxda badan ee aad rajaynayso maalin uun inaad gaadho iman maayo helimis maalin uuni iman mayso aad iska hagaagi doontaa maalin uuni iman mayso cibaadada ilaahay ku waafajinayo adigoo haba yaraata waxaad samaysay aanay jirin isagoo qalbigaagu ilaahay mar walba u taalaanayo maalin uuni iska iman mayso inuu qofku waxa weeye uu noqdo qof waxa weeye karti badan oo wanaagsan oo waxa weeye hogaamiye ah oo dadka wax u taraya oo tiisi meel dhigay iska iman mayso ogow markaa bishaara aan fiicnayn inaanay maalintaasi marnaba aanay imanayn waxaad ogaataa inta aad ku jirtid waxa weeye caalamkan maalin uun inta aad gudaysid gudcurkan iyo humaagan aanay waxba ka jirin ee aad hadhow aad ku waxa weeye hungoobayso waxaad ogaataa si aad guul aad u gaadho waxa ugu horeysa samaysaa ha noqoto in ereyga maalin uun in fikirka ah maalin uun ban hagaagi doona in waxa weeye dhaqankaas ah in maalin uun ban wanaagsanaan doona liiskaaga ka saar dictionary-gaaga ka saar qaamuuskaaga iyo ereyada maalinlaha ah ka saar markaas ayaa talaabadii koobaad ee guusha aad gaadhi doontaa haddaad doonayso inaad guulaysato caalamkan isaga ah yaan lagu arkay safar salaama salaamu calaykum